عليكم تلا بركات أخواتي كسر دوغادا شانل كيغا ولا شنو معيمن waxaan maanta ka hadlaynaa waxyaabada wajiga anti aging ka masha Allah white scrub kane waxaan ka sameynaa masha Allah saad arkaysiin waxyaabo natural masha Allah waa milix sida qaruurada kale oo eeg masha Allah oo dabiiciya wajiga finanka ka ilaalisa aad bay masha Allah madmadowga ka qaadaa daldaloolada xitaa waxay dadka wajigooda daldaloolada leh isku ogaada baalkan daldaloolo u yeeshay masha Allah daldaloolada ka awdaya lagama sheekeyn karo midda kale waxa weeyaan waa isagoo buda kana soo budee waxaan ku daray malab manukadaasaan ku daray masha Allah dacarta ku daraysa rose water baad ku daraysaa masha Allah lagama sheekeyn karo akhwaati haddii madmadow yar aad leedahay waxaad u baahan tahay inaad ku darsatid kan ayaad ku darsanaysaa qofkii finanka daldaloolka waxaasoo dhan u maara waayey alaabtan baa qusaysa masha Allah lagama sheekeyn karo waana tusaya masha Allah sidoo isku jiidanaya wuxuu noqonayaa sidii scrub oo kale waa aragteen waa sokor camal oo kale la muday milixda marka la daqiijiyo waa aragteen saas oo kale tahay masha Allah marka jirkaaga si naacim u marsamaya wax walba masha Allah dacartaada ku darso malabkaaga ku darso waxa kale ku darsanaysaa rose waterka iyo saliida bio baskinka aad ugu fiican madmadowgana qaata marka insha Allah walaalaha madmadowga finanka iyo madaragtay daldaloolka wajiga ka yeeshay intaasaan ugu advance gareynaya aad u fiican masha Allah alaabtan waxa weeyaan wax dabiiciya meel walbana way taala masha Allah wana raqiis link hoosta soo dhigaya saad u heli lahaydeen wuxuu sameeyaa aad masha Allah lagama sheekeyn karo wajiga madmadowga ka qaadaya maxaa la daldaloolku ka qaadaya waxa soo dhan buu masha Allah ka remove gareynaya xitaa waa anti aging masha Allah oo wuxuu ku sameeyaa gabowga ka ilaalinaya haddii wajiga shubaysanay waa alaab naacima masha Allah laga sheekeyn karin masha Allah halkan hadaan soo noqono waxaan ku haystaa fooxeeni amba luubaanta saad u taqaanaan masha Allah waa tan iyadan soo qalajiyay iyo corn stage warango saad u taqaanaan masha Allah taxalwada ku darsataan iyo fooxi weyn marka qaadafkan iyo qaadada wax lagu cuno ayaad meel ku shubaysaa biyo kulul baad dabada u gelinaysaa masha Allah waxaad kula daraysaa olive ka qaada yar ku daraysaa teaspoon kanaad ku daraysaa vitamin E na waad ku daraysaa saad arkaysaa saddexdaasaan ku daray mid walba teaspoon waa ka saas u noqonaya isagana waa ka wali kareemka ma dhigin waan tusi doonaa iyadoon kareem ka dhigay insha Allah waxaan doonayaa markaas biyo kulul baan dabada u geliyay saas iskugu milmay waad arkaysaan masha Allah naacim buu noqday lagama sheekeyn karo marka hadda sidii kareem uga dhigi lahayd masha Allah waa wax yar oo easy ah kareem inaad ka dhigatid baa la rabaa masha Allah saa arkaysiin hadda kareemkii baan ku shubay kareemkii aan ku shubayna waa olaygaad ku darsanaysaa haddaad haystid amba kareemka adiga habeenkii ku naasibaad marsatid ayaad ku darsanaysaa masha Allah lagama sheekeyn karo masha Allah waa kaas kareemkii inaba caadi ma ahwad saad arkaysaan marka waxaad ku shubanaysaa meel kareemkaas waad marsan kartaa habeenkii baad marsanaysaa mar walba masha Allah lagama sheekeyn karo akhwaati inaba caadi maaha waa kareem caadi ahayn boxer baan ku shubanaynaa waan tusi doonaa masha Allah kareemka aad u fiican naacim buu noqday masha Allah lagama sheekeyn karo akhwaati akhwaati masha Allah wasaad arkaysaan kareemkan adaa samaysan karaa waa kareem anti aging gurigaaga wax ku yaalaad ka samaysan kartaa iskuma hawlaysid wax qaali inaad soo gadatid masha Allah faa'iido badan kugu jirto walaalaha insha Allah iyakuna finan kale daldalool kale wax badan ay ka faa'iideeyaan baa jirta masha Allah fooxa sidan u wada ogsoonahay waa anti aging wajiga masha Allah u hagaajiya u qurxiya masha Allah wax badan buu siiyaa corn stage ku saas maqaarka aad buu qurxiya maqaarka dhintay ayuu ka saaray maqaarka nool buu masha Allah ku soo saaraya
aad buu fiican cornstarchku saad wada ogsoontiin ma sha Allah sida loogu sameeyo waxyaabo kale oo badan insha Allah waan tusi doonaa waxa kale oo marka loo sheego ma sha Allah waxayna luubanteena ma sha Allah waxa badan inoo qabanaysa maqaarkeena lagama sheekeyn karo wada ogsoontiin xitaa jirka wuxuu siinayaa inuu madaragta asaasan haduu yeelan jiray wajigaaga oo kale uu ka baayaa markaad luubanta marsatid dadka casaan jiray dadka barar jiray dadka iscuncuni jiray wajiyada waxa soo dhan luubantu ma sha Allah way ka saartaa jirka isku ogaada marka luubanta aad bay luubanteena luubanta karku fiican tahay ma sha Allah luubanteena ma sha Allah ka faa'iideysa wax badan oo maqaarka u leedahay baa jirta waxyaabo badan oo ma sha Allah qof walba saliida waa tii naasibta sweet almond haddii ku naasib weydo waxaad kala soo qaadanaysaa jojoba jojobada kale isticmaali kartaa argonkaad isticmaali kartaa qumbaad isticmaali kartaa midii adiga markaa ku naasibta ayaad kula samaysanaysaa qasab maaha in sweet almondka amba olive raacdid haddii aad adiga jirkaaga naasibin kuwii markaa naasibaya qaado baan ku dhihi lahaa ma sha Allah intaba way la shaqaynaysaa laakiin olive mar walba waxaad ogaataa maqaar kasta way la shaqaysaa akhwaati olive markay maqaarka tahay lagama sheekeyn karo ما شاء الله ايه بوناكسن تاعي تاسا نيجو بورنا ان شاء الله اسكو سو دعينا ولا لها نغو عصبنا ان شاء الله سبسكرايب لايك صار ان شاء الله شانلكا نغلا سocdo waxyaabo badan in sha Allah soo gudbin doono wixii su'aala in sha Allah hoosta nigu soo qori kartaan milixda iyo magacayga kullu waan soo dhigay in sha Allah sawirkeygana walaalaha raba in sha Allah facebookada aan soo dhigi doono in sha Allah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh